السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومدة الصومالية ميل بعد جوكتان كسو دوانا جنراليست كنا كلا عين تشوي عتي ميديا فضلا هدي أنا لجوكتنا سيشر قرية وأقربني صاحبني لو داقة هدي كلا نقص عبيرة إن وحرمنا دق إن نكور مرنا قبناها ما لها مارتا أرضايا دينا عين تشوي عتي ميديا إن بريق أفريقيا وحيالها كعصب أيام كوب الله بدونا إن waxaa subaxnimadii hore hiiradii hore saakay ee bishu tahay 22 bishii December 2021 subaxnimo Arbaca oo imanka maaragta laga joogo dhowr saacadood waxaa xilki isaga tagay iscazilay ra'iisul wasaaraha maaragta ku meel gaarka maaragta ninka la yiraahdo wadanka Suudaan ninka lagu magacaabo maaragta hadoo la kuuron yahay ra'iisul wasaaruhu sababtu isku cazilay waxaa lagu sheegayaa in cadaadis fara badan uu uga imaanayo dhanka militariga sababtoo waxaan ognahay militariga iyo rayidka in loo qaybsaday adwaa la ku roonyahay xukunkii oo inta ugu badan nimanka militariga ay gacanta ku hayaan jarnalada sidaas la midna qayb yar oo soo hartay ama 30% wax lagu tilmaamo ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa gacanta loo geliyay waxaa maaragtaa bishan bilowgeedii ama bishii hore dhammaad yaaqadeedii waxaa xabsi guri la dhigay oo xilka laga qaaday ra'iisul wasaaraha iyagoo maaragtaa xabsi dhigistaas iyo maaragtaa haduu la ku roon yahay xabsi gurigaas ay sameeyeen nimanka maaragtaa nimanka la yiraahdo xukunka la hayo oo inta badan u hayo militariga maadaama markaas la sameeyay ra'iisul wasaaraha xabsi guri la geliyay mar labaad ayaa maaragtaa waxa lagu tilmaamay heshiisa kadib markii la saaray cadaadisyo beesha caalamka ay saareen ayaa dib loogu soo celiyay markay dib ugu soo celiyeenna waxa dhacday in cadaadisku si tabtiisii uu iska ahaado isagoo ra'iisul wasaare ku magacaaban ayuu haddana wuxuu yahay xabsi guri wax la mid ah oo dhaqdhaqaaq ma laha siyaasadda caalamka kama hadli karo dalkii waa iska qasan yahay wali banaanbaxyadii baa socda xoogan oo maaragta haduu la ku roon yahay qaybaha kala duwan ee bulshada haday dhaqaatiirta tahay haday ardadii tahay haday tahay bulshada rayidka haday tahay maaragta haduu la ku roon yahay ganacsatadii haweenkii caruurtii wixii oo dhan waa banaanbaxayaan banaankay taagan yihiin ra'iisul wasaarahuna maaragta maadaama culeysna lagu hayo siyaasadeed oo dhinac ka haysto xabsi guri uu yahay oo magaca uu iska wato dadkiisuna ay banaanbaxayaan banaanka u taagan yihiin wuxuu gartay inuu iscazilo maaragta waxaan rajaynaynaa dalka Suudaan inuu badqab ku dhamaado oo maaragta maadaama uu iska kacsan yahay sidaas la mid ah meesha la yiraahdo colaadii ka taagneed gobolada waqooyi ee Itoobiya ee dhulka Tigreega loo yaqaano ilaa iyo shalay ilaa iyo xalay waxaa ka socday duqeymo lixaad leh nimankiina waxay mar walba soo sheegayaan oo maaragta soo dalbanayaan nimanka Tigreega ninka madaxda u ahaa inuu maaragta wada hadal diyaar u yihiin maaragta dagaalka iyo duqeymaha laga joojiyo miiska wada hadalka lagu soo laabto welina maaragta xukuumadii Itoobiya midna kama hadlin oo waxayna u muuqataa inay raalli ku tahay inay maaragta dagaalka ay sii wadaan maaragta ayadana colaadaasna wixii ka soo kordha mar labaad ayaan maaragta soo gali doonaa hadii alla muuqaaladan xigaad ku daawan doontaan akhyaaray mar kale waxaan idin ka codsanaynaa inaad sii qaybisaan iyo maaragta asxaabta nala joogta kuwa kale in si ay noogu soo biiraan oo halkan aan bahwadaag ugu noqono wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh